ألا تحبون أن يغفر الله لكم ورمي إذا انشعلين إن الله إذن دافو إذن سامعوا جوابتوا ها وانشعلنا سأسترادت سي أنشانس كان وقفا إذي سنة وهبين إن نقصوا آدم ويبش شعبان إن النس نقطه وهبين إن نقصوا آدم قلبك وقتك يرى الله وانتات كشقيسيسو ظاهري ونظيف إن شاء الله تعالى سي إلهي قلبك أطالع ذو كدبنا لوجود مدافع بإذن الله تبارك وتعالى أضغط من نقطه ذاتك الله سامح يهبينك بإذن الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله وحن كجرنا بشي شعبان يكوه الرئيسي بشر رمضان وقتي والباء يحل والبنا وحوليه هي عبادات مناسبة ونبينا صلوات ربي والسلام عليه كسوغا أما السجود أما السجارة بشن عبادات فربضا بليه كلاي كلام متاح لكن نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحاو سيغونيه ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo bishan inuu soonkeeda badiyo Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حديث كرواية كلو أتيسا وحي لها عائشة رضي الله تعالى عنهما نبي قبيش الشعبان ودنوا وذا الصومي تشري رواية كلنا وحي لها هاي شعبان ودنبو صومي تشري إن يرمويه وحير أيوز أفوري تشري انت هذا بدنا وصومي تشري النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلو عائشة أي ورينا يسوسنا بداود كوي مدنا وحي لها النبي صلوات ربي والسلام عليه بشا وقلت عليها هاي إنو صوم شعبان بي أهان شرتي صونكا وصوميها بشا شعبان نوحو كحريرين شري صونكا بشا رمضان عادة يوه هاي النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه مركا وحا هبون بشن إن لبضيه صونك لأن السيدة ذا النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه هذا أركتو إسوغو عبادة ميل كو خاص يليه أما وقتي ذا كم ذا عبادة كو خاص يليه أما طول كميل كم ذا عبادة كو خاص يليه حلقا أما طول كاس عبادة ذا علاقة خاصة كدحيس حكمة باكو جرتا ما جرتا وحلي لهذا شارعة الله تبارك وتعالى رسول كيس صلوات ربي والسلام عليه إني وقت عبادة إسلاف في رصدان أما ميل يبقع عبادة إسلاف في رصدان وإسكت عضو حكمة الآن ما جرت حكمة باكو جرتو بيشن وحا لو صوميو والنبي صوم كأوبدين جري صلوات ربي والسلام عليه حكمة باكو جرت حكمة دا قار كم إذن النبي قاتل المامي صلوات ربي والسلام عليه وعائشة وحي ويديس رسول الله بيشن محاد صوم كأوبدي ساعة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم بشني وبال أيدتكو موجهين وهالمنسيهين إلهي عبادتيس لبا بلود بيقول حيسا بشهر رجب ليلة وأشهر الحرم ككمدة أفرت بلود حرمضة لقوني ده بيكمته إيه بشهر رمضان وبشي صنك عباداتك labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay midna ay bishii Ramadaan ba tahay labada bilood bay u dhaxaysaa dhexday ka baxda marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada Ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wassalaamu alayhi maxay tilmaamaysaa waqtiga ay dadku cibaadaadka Ilaahay moog yihiin oo ama ka hurdaan ama kasii jeedaan
xilligaasoo kale ruuxa cibaadada ilaahay ku mashquulo addoommada khilaafa oo ghaflada ay ku jiraan garab mara wuxuu leeyahay mudnaan khaas uu leeyahay ajir siyaada abuu leeyahay maxaa yeelay waa xilli la wada halmaansan yahay asagaa ku baraarugsan oo dadkii ka dhaxbaxay waa midda keentay nusuus fara badan inay ku timaado oo meelo kala gedisan ku timid ruuxa xilliga noocaasoo kale ah cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala in ajir siyaada la siiyo mudnaan khaasana nabigu siiyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a maalan asbaabta jannada lagu galo nabigu wuxuu ka mid dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadku markay hurdaan habeenkii oo cid ilaahay xusaysaba ay yar tahay intaad hurdada ka soo kacdo inaad ilaahay xusto asbaabta jannada lagu galaa laga mid dhigay leanna waa xilli dadku ay halmaansan yihiin waxaa ka mida maalan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya markay fitna dhacdo way dadku islaynayaan oo kuraas iyo adduunyo iyo jago iyo dhul iyo balaayo laysku laynayo la mashquulo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkana laga kala tago la halmaamo addoonka xilligaa cibaadaysanaya ee cibaadada ilaahay ku mashquulsan wuxuu la mid yahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam sidii mid aniga ii soo hijrooday oo kale leesh lianna waa xilli dadkii ay aafa iyo balaayo gashoy fasaadeen inta cibaadada ilaahay ku baraarugsanna ay yar tahay wahaakada nusuus fara badan baa ku imaanaysa xilligaa la ishalmaamo dadku seexdaan ay cibaadada moog yihiin in cibaadada lagu mashquulo ajir siyaada bay leedahay taa waa qodobka koowaad oo nabigu ku cileeyay sallallahu alayhi wasallam soonka bishan badinta uu badin jiray cilada labaad wuxuu nabigu ku cileeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bishani waa bisha acmaasha kor loo sii qaado addoommadu waxay samaynayeen sanadka taacaadkii khayraadkii wixii la samaynayay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa saas daraaddeed waxaan jeclahay anigoo sooman in camalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kaloo nabigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnaha inoo soo baxaya waxa weeye nabigeenna si aan ugu dayanno salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bishan ciddii kari karta soonkeeda ha badiso hadyigii nabigeenna way salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dariiqiisii arrinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala badhanto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala badhantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa laba ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow
وحقدي له روح حقدي ينعيب قلبك أجوهيا روح مسلمة السجن الله رافي ماي وعجيب مشرك جرنا كان أورك كتشرنا المسلمين تعالى أوهيا ما حقدك أوهيا ما أوحنا أحسن محلو ما جاي صوبت وحويان أفيرسو ماشي اللي جاي السجي مشرك جيب على إصدابك إسلس جرب دقي ولا فوقي وحن ماشي كفهمينا إلهي تبارك وتعالى الدنبية اللي جاء كوا وجوا وين وحى كم إذا إنه قلبي جا وتشريه وتشريه هدتك إلهي أدومدي سي مؤمنين تا مسلمين تا وهذا نعبت هاي حقد بعضها يسا حسد باكو وتشرا نعيب باكو وتشرا ووحي إلهي ديدي تبارك وتعالى ماشى كلينا ما هي مناسبات فربضا حقدك إيه على الحمادة كوجو تشرتاد مسلم كأوهيسو waxay keenaysaa meelo fara badan in Ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo xuquubadiisa tabaaraka wa taala waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi inuu yiri maalin kasto oo khamiisa iyo maalin kasto isniin ah acmaasha adoomada kor loo qaadaa Ilaahay ba acmaasha loo geeyaa markaas Ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kasto adoomadiisa ka mid إلا عد مشرقو إلهي أدومديسة حقي الله كدحيسيي مويه يا كلي نين كلاس سجنا أن لود دافينين ومالين كاسي سجنا أن خميستي يجمع هذا مركع عماش الله قاضي أن لود دم بدافين واكي والنبي صلى الله عليه وسلم والروحة السجا يا ولالكيس مسلم كأي كدحيس الشحنا حقدي وكدحي الله وحليه تبارك وتعالى لوضن حقدك يا حمانت إصوها يدبلغ أرنكودا وكاذية إلى إكسو هشيان ما يلا بدن بعض قاضي مركة لأن إلهي تبارك وتعالى وحوقتش عليه هاي أعماشه وحوقتش عليه وحاكم إذا إن قلبي قاقو سليمية قلبي قاقو فيوية قلبي قاقو حارية ضدك مسلمين تا وضا تشعشه حمان آذن قلبك أقوهين قلبك إنه أفيويه نبينا صلوات ربي والسلام عليه أي وحل ويتيه ضدك يا أقو فضل بدن رسول الله والنبي يقول صلى الله عليه وسلم روح كستوء محموم القلب الصدوق اللسان قلبك يسو محموم يهي عرب كيسو الرم بدنيه وحي لهذين قرني متك عرب كيسو الرم بدنيه هاي قلبيسا محمومة محل قوضا ما أنهم فاهمين أنه عده والنبي صلى الله عليه وسلم وحل قوضا هو التقي النقي ومتك قلبيسا الله كعبس كتشره قلبيسون الظاهري هاي أو النظيف هاي وسيوة النبي صلى الله عليه وسلم وحير ومتك قلبيسا أندم بكتشرين قرد الرأي حد قدب الظلم كتشرين ظل خيانة أين كتشرين حسد وسن قلبيسا كتشرين كاسا إلهي أضوامدا إلهي أقفض لبدن أقونا تشعليه ساس تردد هذا قلبك حمان كوهيس حالدها سي وقتيدا سي مناسب كقيمها بدن ليس سامحة ولا غير ريبي يا واتك هريسا وإن أدمرك قلبك أجا نظيفيسو وآد ظاهريسو وآد كدكتو قلبي سليم وفيوم نبي جينا صلوات ربي والسلام عليه saddex bari oo isku xigtay buu nax saxaabadiisa oo la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu janna ah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan saddex bari janna looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaado badan oo uu rag la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad والصحابة كلا لدري هي مصابين لكن محل هلي وحل هلي أو شيء هل هبين أم مصحنين أنا جو قلبي جيجا روح مسلم حمان أجوهيا وميدا ومشى كو قاري واحد سيدا صدرات هداد إلهي دم بداف كي سربت يا عماش هذا إن ميل في عن لجيو
qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee mu'miniinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdiha gelini xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga hanaga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooye aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallallahu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaq aad uga fogeynata maayeel ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkiya cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aayada waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waay waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabado taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta ee sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxay ilaa nabigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin way sii kala culus tahay saas daraadeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu ayda ay saxaabadii nabiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaada ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki malaha in ay galayaan xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa limushrikin aw mushahin dad ilaahay doortay markaad adigu ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb bu allah tabaaraka wa ta'ala awliyadayda ruuxi la colaytama aniga dagaal u cilaamiyeha ku tala gala dagaalkayga saxaabadii nabiga ninka ku mashquulsan ee laga kari laayahay dagaal rabbi tabaaraka wa ta'ala ayuu ku jira nin ilaahi dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba reynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahi tabaaraka wa ta'ala adduunyo aakhiraba uu ciqaabahayo uqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu halis ugu jiro muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام بدافع وضنت هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsiniin haddaad cadhaysantoo dhib aad dareemayso qarso dhibkaaga cadhadaada celi dadkana iska saamax oo cafi alaa tuhibbuna an yaghfira allahu lakum ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardah markuu ku xanaaqay ninkii Mistah ibn Athatha ya markuu ku xanaaqay oo Aisha dadkii ku been abuurtay ka qayb galay oo beenta faafiyeen abuuradka kadibna uu yiri dib dambe inaanan u masruufaynin qaraabay ahaayeen ilaahay aayaduna soo dejiyay tabaaraka wa ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum warmiyaydan jeclayn in ilaahay idin dhaafo idin saamaxo jawaabtu waa haa waan jecelnahay ilaahay adoomadiisa saamaxa عفية قلبك أفرا ونصيحية مسلمين تجعلوا متك قلوا حسن دنبك كلي دنبك يصنع لكن يسقها النعل يا دنبك يأهواذا حمانته لفت هذا لنع لكن شخصك مسلم كان لمنعه لمنكهضه لفيه سوى الروح مسلم عاصبها هذا سداس درادد دنها الدنيا دقالك كصاب سني ملكو جين ماي حقابا إذن دحمري صح هذه الشحناقة أضوها يسويها الروحاني يعني فكر كأو حنبارسين وحو فكر خربا دين أهم بعد وجه هجرته وحو وتي مبدئ إيسا خلدا تاسوا مسألة كلام لكن واحد ضد قال سنت وضو حناق سنت وضو نعبته والدنيا كرسي با إذن دحمري حولا إذن دحمري وحقابا إذن دحمري تاميا شحناقة نوعاس لما أقول سأسترادد سي أنشانس كان يوقف إذا سنة وهبين ندن نقصو آدم ويبش شعبان إن النس نقطة وهبين ندن نقصو آدم قلبي قاعد وقت غير الله وأنت تكشف قيسيسو ظاهري ونظيف إن شاء الله تعالى سي إلهي قلبي قاعد أطالع عضو كدبنا اللي وجودا بدافع بإذن الله تبارك وتعالى أو من نقطة ضدك الله سامح يهبينك بإذن الله.